Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 15. In our today's lesson, we are going to learn conversation 15 out of 100. It is me, Abdulkarim Hassan from Moonlight Academy. ardayda qaaliga kusoo dhawaada Moonlight Academy kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka 15aad oo kamid ah casharadii taxanaha ahaa ee ka baxayay shabakada Moonlight Academy. casharka maantana waxaan ku qaadan doonaa conversation 15 wadasheekeysigii 15aad. casharkana waxaa idin la socodsiin doona aniga oo ah Abdulkarim Hassan. sida caadadayna ahayd aan u qaadano magaca qof bina magaca qof kale. marka wadasheekeysiga waxaa ka soo muuqan doona oo kaliya iyo b ayaa ka soo muuqan doona. Without wasting time, let's start our lesson. How many days are there in the week? How many days are there in the week? How many days are there in the week? How many days, how many imisa days ayaamod mise maalmood are there ku jirta in the week isbuuci? How many days imisa ayaamod are there ku jirta in the week isbuuci? There are 7 days in the week. There are 7 days in the week. There are waxaa ku jirta 7 days ayaamood in gudaheeda the week isbuuci. There are 7 days waxaa ku jirta 7 ayaamood in the week isbuuci. There are 7 days in the week. isbuuci waxaa ku jirta 7 ayaamood. What are they? What are they? What are they? maxay yihiin? What are they? maxay yihiin? sababta uu weydiiyaa ah waayo hore ayuu u yiri isbuuci waxaa ku jirta 7 ayaamood. marka waxaa la weydiinayaa 7daas ayaamood maxay kala yihiin? What are they? maxay kala yihiin mise maxay yihiin? They are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. They are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. They are waxay kala yihiin Saturday, Sabti, Sunday, Ahad, Monday, Isniin, Tuesday, Talaado, Wednesday, Arbaco, Thursday, Khamiis, and iyo Friday, Jimco. They are waxay kala yihiin Saturday, Sabti, Sunday, Ahad, Monday, Isniin, Tuesday, Talaado, Wednesday, Arbaco, Thursday, Khamiis, and iyo Friday, Jimco. What day is today? What day is today? What day is today? What day waa ayaante is today maanta. What day waa ayaante is today maanta. What day is today? maanta waa ayaante. Today is Monday. Today is Monday. Today is Monday. Today maanta is waa Monday Isniin. Today maanta is waa Monday Isniin. Today is Monday maanta waa Isniin. haddii ay sabti tahay waxaad leedahay today is Saturday. ahad haddii ay tahay Sunday, Monday waa Isniin,
iyo wixii la mid ah horey aan usoo baranay insha Allah dib ugu laabo haddii aadan weli garanaynin. What day was yesterday? What day was yesterday? What day is today? Maanta waa ayaantee? What day was yesterday? Shalay ayaantee ahayd? What day was yesterday? Shalay ayaantee ahayd? Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Shalay waxay ahayd Ahad. Waayo Isniin waxaa ka horeeyay Ahad. Maanta haddii ay tahay Isniin, shalay waxay ahayd Ahad. What day was yesterday? Shalay ayaantay ahayd? Yesterday was Sunday. Shalay waxay ahayd Ahad. What day will be tomorrow? 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 Beri waa ayaantee? What day will be tomorrow? Beri waa ayaantee? What day will be tomorrow? Beri waa ayaantee? What is the day today? Maanta waa ayaantee? What day was yesterday? Shalay ayaantee ahayd? What day will be tomorrow? Beri waa ayaantee? Marka maanta haddii ay tahay Monday, beri waa ayaantee? Waxaan leenahay tomorrow will be Tuesday. Tomorrow will be Tuesday. Tomorrow will be Tuesday. Tomorrow beri will be waxay ahaan doontaa Tuesday. Talaado. Tuesday. Talaado. Marka waxaan leenahay today waa maanta, yesterday waa shalay, tomorrow waa beri. Tomorrow waa beri. Tomorrow will be Tuesday. Beri waxay ahaan doontaa mise waxay noqon doontaa Talaado. This is the end of our today's lesson. I hope inaad fahantay casharka. La soco casharka xiga. Casharka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Cabdikariim Xasan. Waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.